salaama daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Soomaali News ku soo dhawaada timinteena maalinimo qodobada ugu waaweyn barnaamij wareedkeenana waxaa qayb ka wararkii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso dagaal mar kale maanta ka qarxay iyo khasaaraha ka dhashay barakaca shacabka xaaladda guud ee Boosaaso hay'aynu eegi doonaa maamulka Puntland oo war cusub ka soo saaray dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso baaqa isimada iyo waxgaradka Puntland ayaa sidoo kale warkeena idinkugu soo gudbin doona wasiirka ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble oo sheegay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo doono hadalkii dhawaan ka soo yeeray taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala waqti dheer iyo la siiyay qorshe cusub oo dawladda federaalka ee Soomaaliya damacsan tahay iyo dawladda Soomaaliya iyo Talyaaniga oo kala saxeexday heshiisyo muhiim ah oo cusub ee labada dal qodobada iyo qodobo kale ayaan ku tabi doonaa wararkeena u diyaar garooba daawadayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal isku soo laabad wanaagsan ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku hormarno xaaladda guud ee magaalada Boosaaso waxaa maanta mar kale dagaal uu ka qarxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dagaalkaas oo ahaa mid culus ayaa mar kale dib uga qarxay magaalada Boosaaso kaas oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Puntland qaybahooda kala duwan iyo kuwa ciidanka BSF ee daacadda u ah taliyihii hore ee xilka laga qaaday Maxamed Cusmaan Diyaano dagaalkan ayaa bilowday abaarashantii aroornimo ee maantay waxaana aad looga maqlayo hubka noocyadiisa culus oo isku adeegsanayaan ciidamada gudaha magaalada Boosaaso iyo deegaanada kale ku xeeran dagaalka ayaa ka dhacay si gaar ah eeriyada u dhow xarunta ciidanka BSF ay ku sugan yihiin taliyayaasha ugu sareeya halkaasi dagaalkan ayaa dib u bilowday xilli ay socdeen dadaalo lagu doonayo in xiisada halkaasi ka taagan xal nabadeed lagu bedelo madaxweyne Deni ayaana hore u sheegay inay ka go'an tahay in la soo xiro General Diyaano isagoo hore u sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa maleeshiyad hubeysan ku tilmaameen inaysan Puntland wada joogi karin dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa ku naf waayay in ka badan 10 ruux oo isugu jira askar iyo dad shacab ah halka 40 kalena ay dhaawacmeen sida ayna ka soo xiganay goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso dad badan ayaa ilaa xalay ka barakacaya xaafadaha magaalada Boosaaso kuwaas oo cabsi ka qabay inuu dagaalku sii socdo saameyn uu ku yeesho nabadgelyadooda dagaalka ka dhacay magaalada Boosaaso maalintii labaad ee xarunta gobolka Bari waxa uu sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka iyo ciidamadii dagaalamayay waxaana ilaa xalay iyo shalay ka bilowday barakac xoogan iyo maanta magaalada Boosaaso oo dadka halka deganaa isaga qaxeen waxaana dhammaan xiran xarumihii ganacsiga ee magaaladaas dekada oo la sheegay in hoobiyaal ay ku rideen BSF khasaare ay ka soo gaartay isla markaana dhammaan badoomihii iyo maraakiibta ku xirnaa isaga carareen isku socodka magaalada ma jiro dhaqdhaqaaq ay sameynayaan sidoo kale waxaa jira dad hal qoys ah oo madaafiic ay ku fariisatay kuwaas oo khasaare xoogan uu soo gaaray waxaana isu soo taraya dhimashada iyo dhaawaca uu geystay dagaalkii saaka aroortii hore ka bilowday magaalada kaas oo u dhaxeeyay ciidamada ka amar qaata madaxweynaha Puntland iyo kuwa BSF waxaana lagu soo waramayaa in hoobiyo uu ku dhacay guri ku yaal agagaarka masaajidka Salmaan ee magaalada Boosaaso isla markaana ay ku dhinteen dad hal qoys ah sida laga soo xigtay dad goobjoogayaal sidoo kale xarumaha muhiimka ah ee caafimaadka ee magaalada Boosaaso waxaa maanta buux dhaafiya dhaawacyo kala duwan kadib dagaalkii Boosaaso ka dhacay oo muddo 4 saac toos u socotay xabadooda khasaaraha ka dhashay xaaladda magaalada Boosaaso ayaa ka sii daraysa marka ka dambeeyda isimada maamulka Puntland ayaana ku baaqay waxgaradkooda in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka Boosaaso ka socdo si xaaladda wadahadal lagu bedelo oo dhinacyada tabashada kala qabo ay wadahadal u fariistaan Boosaaso waa il dhaqaale oo bulsho badan oo Soomaaliyeed ay ku xiran tahay waxaana muuqato in shalay iyo maanta ugu duwan tahay maalmo hore oo soo maray bilihii dambe ayaana cabsidan taagneed ee in uu dagaal ka qarxa magaaladaasi dhinaca kale maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay xabad joojin iyo wada hadal ay la galaan ciidanka BSF kadib dagaalo 2 maalmood ka socda Boosaaso wasiirka wasaaradda amniga maamulka Puntland Cabdisamed Maxamed Geylan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin iyo wada hadal kadib dagaal saacada qaatay oo shalay ilaa maanta ka socday Boosaaso wasiirka uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in xukuumadda Puntland ay diyaar u tahay inay xabad joojin la sameeyo sidoo kalena wada hadal lagu dhameeyo hadda kadibna uu dagaal dhicin
warkan ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Geelan ayaa ku soo aadaya xilli Puntland ay aroornimadii saakay dagaal mar kale ciidamada Puntland iyo BSF Boosaaso ay ku dhaxmareen oo muddo saacado badan qaatay. Dagaalka 2 maalmood ka dhacaya Boosaaso waxaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dad tiradooda 20 ruux kor u dhaafayso. Tirada shacabka ku dhaawacmana intaasi way ka badan yihiin. Ma cadda sida ay labada dhinac ee dagaalamay ciidamada u qaadan doonaan amarkaasi, balse horay waxaa odayaasha iyo ismada Puntland ugu baaqeen in dagaal Boosaaso ka dhicin isla markaana faa'iido isugu jiraan bulshada rayidka ee Puntland iyo kuwa Boosaaso degan. Barakici ugu xoogganahayana ka socda magaalada xarunta gobolka Bari ee Boosaaso, waxaana xiran dhammaanba wadooyinka Boosaaso laga galo iyo kuwa laga baxo, taas oo saameyn kale ku sii yeelanaysa dadka shacabka ee halkaasi ka barakacayay. wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ayaa ku amray taliyaha ciidanka xoogga dalka inuu baaritaan dhab ah ku sameeyo hadalkii dhawaan ka soo yeeray taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa soo saaray amar ku saabsan baaritaan lagu sameynayo taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed u sheegay in laga boobayo ciidanka badda Soomaaliya. taliyaha ciidanka badda Soomaaliya Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku eedeeyay inuu boobayo dhulkaas isla markaana si shakhsi ah uu guriyo isaga leeyahay uga dhisanayo, wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay mid khiyaano qarana. wasiirka gaashaandhigga ayaa amar ku siiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa inuu baaritaan sharci ku saabsan inuu ku sameeyo wararkaasi ka soo baxay oo sheegaya in la boobayo dhulka ciidamada badda ee ku yaala magaalada Muqdisho. warqad ka soo baxday wasiirka gaashaandhigga isla markaana lagu ogeysiinaya xafiiska madaxweynaha ra'iisul wasaaraha hantidhowraha qaranka iyo garyaqaanka guud ayaa lagu yiri waxaa warbaahinta lagu faafiyo muuqaalo laga soo duubay taliyaha ciidanka badda kaas oo ku eedeynaya madaxda qaranka oo ra'iisul wasaare Roble ka mid yahay in ay ku leeyihiin dhulka ciidamada badda loo adeegsado arrimo shakhsiyaad ah. waxaana faraya taliyaha inaad baaritaan degdeg ah ku sameysid arrintani, sidoo kalena aad ka qaadid tallaabo waafaqsan shuruudaha dalka iyo xeerka ciidamada xoogga dalka, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga. keeska dhulka ciidamada badda ayaa ku soo aadaya xilli la sheegay inuu khilaaf cusub uu soo kala dhaxgalay madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble, waxaana la rumaysan yahay in keeskaasi uu ka qayb yahay cadaadis lagu hayo ra'iisul wasaare Roble. xogaha aynu helnay ayaa sheegaya in eedahaasi iyo warar kale oo ka yimid taliyaha ciidanka badda uu ka dambeeyay madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhamaaday Farmaajo oo ka careysan ceyrintii Roble uu ku sameeyay xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii la sheegay inuu ku xadgudbeen arrimaha doorashooyinka. wasiirka gaashaandhigga Xasan Xuseen Xaaji ayaana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku amray inay sidoo ugu dhaqsiyaha badan u guda galaan arrintaasi. haddii warkaas been noqdana taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. markaana ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa waqtiga loo dheeriyay si uu sii joogaan Soomaaliya. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa meel marisa qaraar ku aadan muddo kordhin hor leh oo loo sameeyay ciidamada nabad ilaalinta ururka Afrika AMISOM ee haatan ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. AMISOM ayaa lagu daray 3 bilood oo dheeriya waxaana howlgalka la gaarsiiyay ilaa 31 bisha Maarch ee sanadka soo socda 2022 sida go'aamka qaramada midoobay lagu sheegay. si wada jira waxaa qaraarkan oo tirsigiisa yahay u soo saaray 2614 ansixiyo 15 xubnood oo golaha ammaanka qaramada midoobay, waxaana qaraarka ciidamada AMISOM u ogolaanaya inay dhammaanba qaadaan tillaabooyin lagama maarmaan ah ee la xiriira howlgalka Soomaaliya gudahooda ay ka wadaan, iyadoo xaaladda Soomaaliya ay weli tahay mid khatar ku ah nabadda iyo ammaanka caalamka. waxa uu golaha go'aamiyay inuu ogolaaday in dowladda oo xubnaha ka ah Midowga Afrika inay sii wadaan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ilaa 31 bisha Maarch 2022 ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay. sidoo kale waxaa bayaanka inta lagu daray in AMISOM ay waajib ku tahay inay dhowraan qaranimada iyo madax bannaanida siyaasadda Soomaaliya. waxa uu golaha ogolaaday in AMISOM ay qaadato dhammaanba tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si buuxdana ugu hoggaansamaan waajibaadka dowladda ka qaybgalaya waafaqsan shuruudaha caalamiga ah oo ay ku jiraan sharciyada bini'aadanimada iyo xuquuqul aadanaha, iyadoo si buuxda loo ixtiraamayo qaranimada iyo madax bannaanida siyaasadda Soomaaliya si ay u gudato waajibaadkeeda. sida ku cad qodobka 13. arrintan ayaa ku saadaysa iyadoo haatan dood adag ay ka taagan tahay qorshaha kala guurka AMISOM isla markaana dowladda ay ku weyn tahay in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan ammaanka guud ee dalka marka ay bilaha soo socda ka baxda Soomaaliya AMISOM. ugu dambeyntiina dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiisyo cusub oo muhiim ah. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali oo magaalada Rome ku sugan oo safar shaqo ku joogo ayaa heshiis is-afgarad la saxeexday madaxweynaha hay'adda magaceeda loo soo gaabiyay MOU
si loo xoojiyo xiriirka iskaashi ee labada dal, tacliinta sare iyo dhaqanka. Heshiiskan is-afgaradka ayaa ku saabsan labada dhinac inay iska kaashadaan horumarinta tacliinta sare, dhaqanka, iyadoona ardada, shaqaalaha dowladda iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed loo fidi doono deeqo waxbarasho iyo tababaro heer sare ah oo ay ku qaadan doonaan dalka Talyaaniga. Munaasabadda heshiiska is-afgaradka lagu kala saxiixday waxaa goobjoog ahaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga iyo wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Abuukar Xaaji. Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaana waayihii dambe ahaayeen kuwo xiriirkooda aad u soo wanaagsanaanayo, isagoona wasiirka arrimaha dibadda xaaladaha guud ee dalka uga warbixiyay, islamarkaana sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid miro dhal noqon doono oo labada dal dhex mari doono. Inta ayaana ku soo afmeeraynaa tabinteeni maalinimo aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News. Warkan war lamid intaan kulmi doono, nabadgelyo.